የኦሮሚያ ብልጽግና አዲስ ካርታ አዘጋጀም። የብልጽግናው መንግስት በኦሮሚያ ያጣውን ቅቡልነት መልሶ ለማግኘትና የክልሉ ህዝብ ተቆርቋሪ መስሎ ለመታየት የሚያደርገው ጥረት አካል ነው የተባለለት አዲስ ካርታን አዘጋጅቷል። ካርታው ከጎረቤት ክልሎች ጋር የኦሮሞ ህዝብን ሊያጋጭ የሚችል ነው የተባለለት ሲሆን ይህ የብልጽግና እቅድ ዓላማው ገዢው ፓርቲ በኦሮሚያ ውስጥ የሚያካሂደውን ጦርነት አቅጣጫ ለማስቀየር ነውም ተብሏል። dowlad deegaanka Oromada ayaa bilowday hirgelinta qorshaha ay ku boobayso dhulka deegaanka Soomaalida ee xuduudaha teedsan sida ay muujiyeen dukumeentiyo iyo qariirado oo xisbiga barwaaqo ee deegaanka Oromadu u diyaariyay oo laga soo helay xafiiska xisbiga talada haya ee deegaankaasi 16 degmo oo ka tirsan gobolada City, Faafan, Erer, Afdheer, Liibaan iyo Daawo ayaa ka soo muuqday qariirada cusub ee deegaanka Oromadu ay bilaabeen dhaqangelinteeda iyaga oo ka faa'iideysanaya xukunka dalka ay hayaan iyo liidashada mas'uuliyiinta wadaniyadu ku yeertahay ee deegaanka Soomaalida ee heer federaal iyo heer deegaan oo mid walba si uu kursigiisa u ilaashado uu indhaha ugu qarsaday dhulka Soomaaliyeed ee boobka lagu hayo. telefishanka Karamarra ayaa bil ka hor soo bandhigay qorshahan oo waqtigaasi bilow ahaa isla markaana xafiisyada sarsare ee deegaanka Oromada iyo xarunta xisbiga lagu gorfeynay kaas oo ay soo galiyeen maapka goglaha. hase yeeshee cadeemahan hadda la helay ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixinaya qorshaha Oromada kula wareegayso dhulka deegaanka Soomaalida. xafiisyada nabadgeliyada iyo warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida oo aanu qadka telefoonka kula xiriirnay si aan wax ugu weydiino qorshaha dhulboobka ee Oromada ay qaarkood ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrimahan halka kuwa kalena aanay telefoonadu qaban. በዚህም መሰረት ሞያሌ፣ ደካ ሱፍቱና ሁዳት ወረዳዎች ወደ ቦረና ዞን፣ ጉራዳ ሞሌ፣ ጉራቦ ካሳ፣ ኤረር፣ አፍደም፣ መኢዞ፣ ባቢሌ፣ ጉርሱምን ጨምሮም 16 ወረዳና ቀበሌዎችን ወደ ኦሮሚያ ለማካለል ካርታ ተሰርቶ እንቅስቃሴ የተደረገ ነው ያሉት እነዚህ ምንጮች qorshaha dhulboobka Oromada ee dhulka deegaanka Soomaalida oo ay sidoo kale faafisay warbaahinta sida xeesha dheer u soo bandhigtay waxyaabaha qarsoon ee ka socda Ethiopia Forum ayaa waxa la sheegay in hadda ay mas'uuliyiinta dowlad deegaanka Oromadu bilaabeen in ay dowladda federaalka u gudbiyaan si dhulkan loogu calaamadeeyo meel lagu murunsan yahay taas oo noqon karta amaba gogol xaar u noqon karta hirgelinta qorshaha amaba damaca Oromadu. warbaahinta Ethiopia waxay sheegtay in xisbiga barwaaqo ee deegaanka Oromada oo diyaariyay qorshahan lagu boobay dhulka Soomaalida uu leeyahay dhowr ujeedo ka sokow in uu hunguri ka hayo dhulkan haddana uu arkay in culays siyaasadeed oo saaran uu isaga fududeyn karo. arrinta koobaad ee ay Oromadu kale yihiin ayaa lagu sheegay in ay tahay in dadka deegaanka Oromada ee daga goboladan soo xiga dhinaca dowlad deegaanka Soomaalidu ay ka sii jeediyaan arrimaha siyaasadda ee dalka oo ay tusiyaan in Soomaalidu tahay cadow ay dhul isku hayaan oo ay tahay in ay ka soo dhacsadaan. arrinta labaad ayaa lagu sheegay in xisbiga barwaaqo ee Oromadu uu ugu dan leeyahay in Oromada xuduudaha degan aanay qayb ka noqon jabhada hubeysan ee Ola ee dowladda dalka kula jirta dagaal si baa lagu yiri indhahooda ugu sii jeediyaan kaliya sidii dhulka Soomaalida ee hodanka ahi ay u boobi lahaayeen. 16 degmo ee deegaanka Soomaalida ee Oromada qorshaysatay in ay la wareegta ayaa ku kala yaala 6 gobol oo kala ah City, Faafan, Erer, Afdheer, Liibaan iyo Daawo waxaana loo naqshadeeyay in loo kala qaybiyo sidan. degmada Moyaale ee gobolka Daawo ee deegaanka Soomaalida ayaa waxaa lagu darayaa degmada Meeyo ee gobolka Borana ee deegaanka Oromada. degmada Hodheed ee gobolka Daawo waxa ay ka mid noqonaysaa oo lagu darayaa degmada Areero ee gobolka Borana ee deegaanka Oromiya. degmada Dekasuftu ee gobolka Liibaan waxa ay Oromadu qorshaysay in ay hoosgeyso magaalada Nageele ee gobolka Borana ee deegaanka Oromiya. deegaanka Qarsaduula ee gobolka Liibaan waxaa loo kala qaybin doonaa magaalada Nageele, degmada Wadera iyo Medawalabo oo midba mid kale lagu dari doono. degmada Guridamole ee gobolka Afdheer waxaa loo kala jari doonaa 2 meelood oo kala raaci doonta degmooyinka Delomena iyo Daawaqalinji ee deegaanka Oromiya.
degmooyinka Gorobaqsi iyo Raase ee gobolka Afdheer waxaa lagu darayaa degmada Reyto ee deegaanka Oromiya. Degmooyinka Salahaad iyo Lagahida ee gobolka Erer waxa uu deegaanka Oromiya ku darsanaya degmada Seweyna, halka degmada Qubi ee gobolka Erer iyaguna ay qorsheeyeen in ay ka mid noqoto degmada Lagahida ee deegaanka Oromiya. degmada Mayamuluqo ee gobolka Erer waxaa loo kala jarayaa 3 meelood oo kala hoos tagi doonta degmooyinka Booke, Golo-Oda iyo Beela oo deegaanka Oromiya ah. degmada Baabili ee gobolka Faafan waxaa la qorsheeyay in Oromadu ay ku darsato degmada Gaawa, halka degmooyinka Gursum loo qaybinayo 2 meelood oo la kala hoosgeyn doona degmooyinka Oromada ee Haramayo iyo Meeta Qarsa. Tuli Guuleed oo kamid ah meelaha ay Oromadu muddada dheer qorsheynaysay in ay loo wareegto oo xitaa Abiy Ahmed ka mid yahay qorshaha lagu boobay dhulkan iyo jilicsani ayaa iyagana uu xisbiga barwaaqo ee Oromadu u qorsheeyay in loo kala qaybiyo oo la kala hoosgeeyo degmooyinka Jaarso iyo Kumbolja ee deegaanka Oromada. 3 degmo ee Maaiso, Afdam iyo Erer oo gobolka City ah ayaa waxa iyaguna Oromadu qorsheeyeen in ay ku kala darsadaan degmooyinka Qubaqariji, Doba iyo Meeta Qarsa. ilaa hadda ma jiro war rasmi oo ka soo baxay xukuumadda deegaanka Soomaalida oo ku aadan qararadaha cusub ee ay faafiyeen xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida iyo mas'uuliyiintiisa. mana jirta talaabooyin muuqata oo deegaanka Soomaalida uu qaaday si loo difaaca dhulkan ummadda Soomaaliyeed.